بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. magacaygu waa Cabdi Xasan Maxamed, waxaan deganahay waddanka Qatar, ganacsadaan ka ahay halkaa. Waxaan deganaa muddo 34 sanadooda, dadka badankooda halkaas ay ugu yaqaaniin. waxaan doonayay sidii aan xalayba xogaa miyiga qaar aan warka siiyey inaan ka hadlo arrin ilaa shalay soo noqonaysay miyiga oo la lahaa yani wasiir cali baa inan yaro qoys danyaro kala baxay keli meel ka kaxaystay. waxaan doonayaa arrintaa inaan caddeeyo aan xogaa dhowr qodob halkaan ka idhaahdo. kow horta inanta waa inantan dhinaca fadhida waa inantaydi sagal baa la yidhi, sagal weeye Cabdi Xasan. calina waa Cali Xasan Maxamed, walaalaanu nahay. maxamedna waa maxamed cali xasan oo adeer baanu ahay. marka horta waxa weye waa family caynkaasaanu nahay. taasaan horta doonaya inaan u sheego. carruurtayda iyo gadaa ka dhigana way la degan tahay, gadar bay la degan tahay. halkaasaanay dee la deganahay muddo dheer. marka waxa weeye markii arrintan dee sidaa u wada maqasheen uu dhacday inankan oo ah inanka ugu weyn haddii la ka dhigo carruurta cali dhalay oo maxameda. carruurta kalena ay yihiin oo ugu yari waa 14 jir yahay oo dee yihiin oo 5 inana kaleba ka yaryar yihiin. xanuunkaasaa ku dhacay wada maqasheen. waxaan markaa dee family ahaan bal sidii aan inankii u badbaadin lahayn ayaanu dee falowgeed qabanay. tala badan baan isweydiinay, meelo badan baan xiriir la samaynay. dabadihii waxaa naloo sheegay in waxyaalihii berigii hore sidii wax loo doonin jiray inaanay jirin, in qof familiga ahay uu arrintii ugu tabarruco. markaa waxaanu soo berbergaraynay oo markii ugu hore aanu bilownay in yaasiin xasan oo adeero ah inanka oo walaalkeeda laga yara in uu haddii binkii la yahay u tabarruco. yaasiin sidii windiya ku yimi markii dhakhtarkii jeekakii iyo wixii magaranaysaa dee la waday ayaa ismaajgarin waaya nasiib darro. halkaa markay marayso dee aanu haddana aanu magaranaysaa sidaan yeeli lahayn aan isweydiinayno ayay inanta aan dhalaya sagal ee dhinac fadhida oo dee inan weyn aan dilaa ka dhigo dee jaamacad dhigata ay iyadu tiriilo weyn walaalkii anaa dilaa ka dhigo u bixinaya sidii bay dee dilaa ka dhigo anna waan dee u duceeyey. halkaa markay dee marayso waxaanu markaa inaanu go'aansanay inaanu dee magaranaysaa hawshii bilowno. sidaasaan iminka Indian jooga, dhakhtarada ugu waaweyn baanu joognaa. hawshii processkii baan noo socda. wax dhibaato ah oo meesha jiraana dee ma jiraan oo wax iska dee adduunyada ka dhaca in dee qofku markay duruufi timaado dee guri walba geed walba inta hoos taalla family walba dee problem uu iman karaa. xanuunka ilaahay baa keena in dee haddii inankii la badbaadin karo la badbaadiyo. wixii dee ilaahay qorayna meel bay yaaliin. marka muxuu ahaa horta hawshu waa intaa. waxaan doonayaa markaa inaan dee caddeeyo in hadalkii odaygii ehelkaanu ahayna dee sodonka ahaa iyo saantii sodonka hadalkii inta mikrofoonka loola tegay la yidhi waxyaalahan jirin oo magaranaysaa xabadku cali ku dhuftay reer gabadhaydii iyo inantay waa inan yaro qoysta yaroo laaftuubay iyo haddii laa ka dhigo annagaa soo korsanay. wixii dee faraha badnaayo dee aan arkayn kamarada dabadeeda looga la qiimayey runtii yani anigu dee wax badan halkaa ku dheeraan maayo waa ehelkaygii ixtiraam badan baa jira. marka dee inaan hadaloodu waxaas waxba ka jirin. familigaygana anigu aan odayahay cali waan ka weynahay, odaygii reerkaan ahay. inunba aniga iga weyn ma xasan, dadkuna igu wada yaqaaniin. arrin aanu dee family bal sidii aanu dee maadaama ay daafka xuntiba aanu u badbaadin lahayn aanu carruurtiina u eegi lahayn haddii ka dhigo ayaa dee waxay u tartiibsan lahayn weeye. arrimahaasna inaan wax ka jirin baan ka sheegaya. wax walbana in siyaasad laga dayo haddii ka dhigo wax wada la siyaasadeeyo ama la xaasido dee ma qurux badna. wax dee family walba mushkilad way ku iman kartaa. dadkuna inay wax walba wax ka dayaan haddii ka dhigo siyaasadna maaha. waalidka weyne intaa leega haddii ka dhigan in mikrofoonna loo hoos dhigo waxaan dhahaa ma qurux badna. saas weeye intaan doonay arrinta caddeeyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركه هروان السلامة سلامة إسلام كلمانتيبا مركه حتى الحمد لله على كل حال. عافماك إله ببحي إله بنا قاضى مركه هذا الكون سوكو بنا أمان مركه وحن فيسبوك الميديا هاي تكلم الشيء اللي ليه هاي نيران سكينة الله ضبط وغير ضير أو رجع مركه حتى هاي إله ونحرسته مركه awowgay iyo ayadii way dadkan muxuu ahaa media waxaan ka hadlayaa horta sankaaba qurmo lama gooyo waxay sameeyeen aad iyo aad looga xumaado
oo muxuu ahaayey ay aabahay ceebeeyeen ay adeerkay ceebeeyeen magacay kaga ciyaareen ay dhaheen muxuu ahaayey waa heer danyaroo masakiino yar baa la afkuubay marka horta gabadh iskuulla dhigatay oo jaamacad kale ku jirtaanahay marka nolosha waan garanayaa wareer baanahay ila weyn baanahay way aragtiin marka in la dhaho waa la aftuubtay in la dhaho keliya beer baa lagala baxay wax dee aad iyo aad looga xishooda ay ku hadleen marka muxuu ahaayey horta go-aankan anigaa qaatay anaan dhahay muxuu ahaayey inkastoo dad hore bay yimaadeen oo adeeraday sidoo aabbahay ii sheegay adeerkay yaasiin xasan xagga baaritaankai waxaas lagu qabsaday marka anigaana uga dheeray anaan dhahay walaalkay keliya loo saaraya anaan dhahay noloshiisaan badbaadinaya marka muxuu ahaay adeerkayna weligay galmuu hadlin adeerkayna ismabaan aragoo dee anaa go-aankan qaatay aabahayna waan ula tegay waanu sheegay aabahayna wuu igu duceeyey wuu soo raacay inka hindiyan ku sugannahay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin qadar baan nagu degannahay nolosha ugu wacan baan ku jira muxuu ahaayey alxamdulilah calaa kulli xaal marka in la dhaho inan danyaro wey keliya lagala baxay beer baa lagala baxay waa la afduubanay waxaas waa wax muxuu ahaayey dad waaweyna waayena ku hadlaa ma fiicna sankaaga qulbina lama gooyo marka aad iyo aad baan muxuu ahaayey dhammaantiinba waxaan ii sheegay inaan cidnay khasbin inaanay dee go-aankan anugu naftigayga qaatay inaan muxuu ahaayey cidna dee aanay u khasbin marka muxuu ahaayey dadkan xaasidkana waxaan leeyahay muxuu ahaayey xaasidnimo iska daaya wax kasta siyaasada gelina ceebtana ku hadlaysin cali xasan baad iran keliya beer kala baxay joojiya cali xasan waa adeerkay cabdi xasan waa aabahay maxamed cali xasan waa in adeerkay waa walaalkayla dhashay guri baan kusoo wada kornay muxuu ahaayey aabahayna waa nin maasha allah dee weligii alla isagaa lasoo hayay isagaana muxuu ahaayey la bilin jiray aabahay alxamdulilah rabbilcaalamiin noloshiisu dee waa dee fahmisi malumaleya waxaan leeyahay marka in muxuu ahaayey adeerkayoo dee muxuu ahaayey horta qof dhibban lama dhigo inankiisu weynaa la xanuunsanaya xaaladiisa xaaladda caafimaadka waa la socotiin inaan wax ceeba ku hadashin waa laga weyn waa laga roon yahay marka waxaan ku hadlaysin joojiya go-aankan anigaana qaatay anoo sagaa cabdi xasan oo anigaa inay soo sheegayn in anigaa qaatay in wax kasta la xumeeyo la xaasidara ma fiicna marka waxaan leeyahay go-aankan anigaa qaatay waana ku adkaystay marka dhammaantiin waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu